أنا استوعبت دad كل شيء كجرا يعني وقت دير إلى 6 سنة 7 سنة ayaan jeel ku jiraa waxa lagu xukumay dil ayaan ku xukumannahay oo maandooriyaan ku xiranahay magarata dalka Sacuudi Carabiga aan ku xiranahay waxaana la qabtay 2018 ilaa 2019 inta u dhaxaysay ayaana la qabtay marka dalka Yemen waxaan ka soo taariibnay muqaadaraad anagoo aqoon aan u lahayn waxa dhibaatada uu leeyahay dadka qayb kamid ah lagu qasbay oo dad iska taariibo Sacuudiga وشقة تجي وصور وحنوصل وشقة وصور إحنا شيء يعني عين كذب إلهي وعقدري وقدرين لنا خبطة وأسكر قاعدة نقول جار كذب حبس بين الجيم حكمدان مريت البلد حكومي أنت أصلاً كل واسوق قايلين اللي هو دولة هي سفارة ولا سؤال لين إلهي هذا وهو حلاقة فيها أنا تمشيران حالكم مركزية waxaan loo sheegay madaxweynuhu arinta ka hadlay oo nala sii deeynay anagu rajada fiican qabna ayaa waxaan ku dhacday nin Soomaali oo dhalinyaradii meesha ku xidhnaa kamid ah in la dilo maalintii Axadii aan soo dhaafnay 16 bisha labaad may anagu nala joogo walaal isku meel ayaan ku xidhnayn inta aan jeelka joogay ninka waan wada joognay kulay magaciisana Maxamed Nuur Xuseen Jacal ayaa la oran jiray nin dhalinyarada Soomaalida kamid ah oo ahaa nin wanaagsan buu ahaa ilaahay horta walaalkana waa weynay waa una xariisto إلى أنا وأنا تصينيا هنا الله وإنا إلى راجعون يا الله لكن وحن عطفنا بلدتك عندها ضي أفرطني شنبر على المدة الدري أفرطنا يا هضي أو أفرطني أفرط قوله يقال مركب وحن عطفنا المدعوين عطفنا عرضنا يلا إنه ما رد كهله وسيء مركزي وعرضنا يلا وسوى فرقليو سعودي يبادو dadka uu badbaadiyaan codsanayna madaxweynaha iyo cid walba arrinteeda ay qusayso waaya waxa ii sheegtaa wiilka la dilay dilka lagu fuliyay isaga maxay tahay sababta loogu bilaabay ma faafaahin naga sii wax loo aaneyn karo walaalo oo loo oran karo ninkaasi dadka waxa soo dheeraa sababtaas isaga dadka looga hordilay ma jiro kulay ajasha bilaadankiina way kala horeysaayo qofka maalin bay ajashiisa dhamaataa ajashiisa oo kulay dhamaatay laakiin qorshaha nimankan u yaalay nidaamka ka muuqda waxaad moodaa inuu ajashiisa uu inaga horeysay anagana ay rabaan inay la dilaan marka arrinteeda kulay in wax laga qabto u baahanahay tagala safaaradan iyo nimankan meesha Sacuudiga u qaabilsan dajiraha Soomaaliya xagga u jooga Soomaaliya waa dad aad u liita waa dad aan mar walba xaqiiqo loo sheegaynin waa dad arrinteeda qariyo oo sidoo wax u jiro aan xukuumadda u sheegin marka waxa halkan ka cadeynaya in lagu halaynin safiirka iyo nimanka xagga jooga Soomaaliya u qaabilsan arrinteeda si toos ah oo degdeg wax looga qabto dhammaan cid walba arrinteeda wax ka qaban karta waayay waqti oo marka la idin sheegay oo la idin yiri xilligaas ayaa la idin tooganaya ma jirtaa mise wax ilaa hadda la idin ku wargaliyo ma jirto والله